wadadii xaqanaayran daran wadadii xaqanaayran daran wayo adkaadiyoran daran wayo adkaadiyoran waxaan doonaynaa badan waxaan diidnay baa jiraan. dhammaan golayaasha wakiiladu meel walba ay Soomaali kaga yaalaan waxay leeyihiin in badan oo wanaagsan oo xildhibaan ah iyo qaar kale oo xun oo qaswadayaal ah. Farintani cidna gaar uma aha. waxay ku socotaa wax sheegna u tahay inta yara xildhibaanada ah ee qaswadayaasha ah. xildhibaanada golahan aad arkaysaan waa kuwa fadhigooda quruxda badan leh aanu ka turjubayn halgankooda nololeed. waa kuwa soo maray oo la fara badan ballan qaadiya aan fulintooda badan ah oo afka aan dhaafsiisanayna soo ballan qaaday. in badan baynu cabanay in badan baynu xaqeena barinay oo xuquuqdeena dadka weydiisanay maanta tireerkeenay taaganta boqolaal hore inoo soo baxay waynu daba soconay maalintii ay inoogu dambeysay halka ay taagnaayeen inay lahaayeen waxbaan idin qabanaynaa doorta waxaan ballan idin ku qaadaya min daba reerkeenii inaanu caban waxaan ballan idin ku qaadaya wax waloodu baahantiina dawladda ka soo dhiciyo oo heshaan. bismillaahir rahmaanir rahiim waxay u kalifeen soo sharaxo waa dadkii naga horeeyay qabiilkii nagu jiray xildhibaanadu waxba may qaban marka wuxuu u baahan yahay qabiilkeena inuu helo dad u halgama oo dawladda waxooda uga soo dhiciya ajandaha dawladda oo hoos dhigay wax kasta u baahantiin wax kasta idinku carqaladana waan idinku hor istaagaya abtidani ololayo doorteen waxba idin qabanayaan yaabti marka ay soo baxaan alaaba xildhibaanadu laba kooxood ay u kala qaybsamaan qolo macnaha iyo ujeedka garanaya iyo mas'uuliyadda saaran iyo inaad isodhanayso intaanu golaha iman ka hor waxa loo sii furayba kooras iska caabin ah. dhageysta nimayo maadaama tiin xildhibaanada cusbaa ee la soo doortay sharci dejinta iyo sharciga la tagaysaan meesha ayaan idin sheegaya iyo waxa ajandaha lagu dejinayo sharciguna waa kan ayaa lagu dejinaya lama ansixinayo ajandaha kursigaas ma la sidinaya nin waliba kursigaas oo qalna kaas ku ansixinaya warkaas waa dhan waan dhageysaa ha isoo kursiga shog ambrax gareey ha iga maanta ajandaha waa kii lagu dejinay waa kii lagu dejinaya gacan meesha reerka kala soco gacantana kan ku hayso kaasaad ku dejinaysaa marka ajandaha la soo qaado ajandaha hooyada waa soo dhigtay soo lama wada socotaan dhamaantiin kaasa lagu dejinaya ma shaqeynayso meesha waka sharcigu waa kaasa lagu dejinaya sharcigan gacanta lagu haysanaya kanna gacanta lagu haysanaya reerkaagana isha kala soco nin walba taasa ku taala waxa kaaga horeeya nin walba reerkaaga marka saa loo soo eegana waad fuulaysaa xitaa ku xiga waad ku qabanaysaa waa saas weeyaan sharcigu saas ku dhanta bilaw tawfiiq bal tijaabi adiguna xildhibaan abdow reerkaygan marka xaaladdu akrinto waa kana ku qalina ajandaa lama isina hooyada ama ku dhanayo waka wad qabatinaysaa lama garan marin xitaa wallahi hasta xildhibaan abdi asaayo oo jita lama isinayo warkaas waa dhan xildhibaan galoley sheebaa شرعك سؤال اللي هو لبس صاحبك خيرك أنا إيش هتكلم سؤالنا كنا قاعد تقول هاي سنة وشرع حتى لو بقى حاسس شرح هاي نحن كم قلي نورانا حاجة بيكلي هذا عندي شعر كريم كان جاهلين كريا ما كسبح كده يرو حقوقيني يعني نكي أجندها بريء كلها بارلمان كده صح تقال ما كيس كعلي شيء نوان قرتك نمر حقوقي يوم نفهم ما يصير أنا أتكلم تتكلم نوان هاي مع وسير ذا وندي كريا أقول وياي شوران حناتي حاطين شوران ما قرتي حاجة الله باهنا وحويان ورتا حلبانة كهوري شرد جنتو دي نظام كودي وان تصي سكاني صادقة وقدك وسكان مقادك راسا نعيا وقادك كاسا شرعك اللي قلت جينيا قبصو وكا كامو يعني انتهى كاسا اللي قلت ما حلوان حقا والله هذا لك عصا
عندي كودو maxaan leeyahay marka luuq maxaan raacinaya لما قولي تكون فرنسا ajandaan ku dhufanaya انت لفت تكون فرنسا ku gacanta ku hayo gudoomiyu عينا حضرتك كرسات كونا nasabada baalamaan وكا ma leeyahay soma waan dirtay ايش انا كلا سocota dadkaaga maxay iga dhacaje waa center bank soo ma fahmin marka waa ka sharciga lagu dejinay ma qaataa wadda kala ma la dhex taga ما قرأت waqtigeeda sugan mise way alla kala kaagaad ku fadhiisanayso kaasun qaado ku kala jabi نمري نمري isla markaabana waxay qas ka bilaabaan golaha dhexdiisa nufur ma ajandii xildhibaan qaran miday فرما قد فرا اياه gudoomiye saa kufur sidaa kufur gudoomiye ajandaa ma qayliyana ma yaanay qaylinina odaygan mudan maxaa keenay odaygan cadka ama wuxuu moodayay hoyga lagu dhaqaalinayo odaasha da'dan miyaan garanayaa bal siduu u gariiraya guriga kaaga taranay bal gariir heer balaag ka gagalay muuska jiifsada meelaha dadku dhalimeeyay meesha kala soo doonay ma cid lahayn iyo dad ma la qabto odaygan aamus xaaja loo baahan aamus baan ku leeyahay allo baahano golaha kaamus قولها كامس allo baahano golaha kaamus golaha sharci baa ka yaaliya xeer وكل ديرات allo baahano kala allo baahano kala golaha allo baahano ma ku soo allo baahano gudoomiye allo baahano amsi امسي هذه كيسه بتايه aduguna miliyad aduguna بدل قرار gudoomiye mudixi baa laygu wadayo waa layga soo wada horjeesanaya idilaba de mujuc laguma hay golaha dheeraad dad ku tahayaa igada qarantida furo kama diinaya dheeraad dad ku tahayaa gala waa amsi gala heesi gela ka qaadaya jeeran wada qoyo daa maxayde kama meesha kadib marka la soo kala saaro ee la kala jiido halkii ceebtooda dhuuman lahaayeen ayaa waxay soo istaagayaan saxaafadda horteeda isagoo mid walba ka sheekeynaya say wax u dhaceen ma hadli karayo oo maanta golaha ta ka dhacday waxay ahayd musiibo wax la isku mashquuliyo weyn meesha ma yaalaan xaalad cusub oo dadku ka argagaxana meesha ma taalo kuwii hore wasii suuqay duleynayeen ee feerkiisu lukay dul dhacayeen bay ka tageen awrka dambana awrka hore socodkiisu leeyahay tiin baan haynaa فير يلا يكرس إيمانك ليس كي قادم أنت xaaladdu dejin bay u baahan tahay xaaladdu dejin bay u baahan tahay degdega waa kuwo aad moodo golaha intay fadhiyaan waxaa ka badanba intay saxaafadda hor fadhiyaan waa kuwo cid walba eedaynaya 24 saacadoodna eed la soo taagan qaladka meesha ka dhacaya golaha waxa ka masuula oo keenay oo dhex keenay oo sababay waxa weeyaan sidaan wada ognahay qaskan golaha ka taagan waxa ka masuula cabdaajadow mi ninka xildhibaan abtiyo uraago soo socdaan maxaa helay maalmahan iyo ilaa arrin meeshan meel digniin doonay duweegi sameeyeen miskiin abtaas way salaam alaykum alaykum salaam aad sheegtay abti maxaa ku helay maanta tay ugu dhacday anigoo xaafadayda ku socdo dalcada maraya ay gaari dhuxley ugu soo taraara gaari weyn giliga waaya ka qoladii wada iska masaakiin baa dhagaxyo waxba u dhigeen oo iska sii daayay markii dambe hadi ku hadlayay ya maxaad isdiisay gaari walaad gaari dhuxleeyay waxba war waxaan marka xildhibaan tahay maalmahan oo lagu arkayo dawladda afkaasa ugu taagaysa marka golaha ka soo baxda ayaa wadadays waxa la doonayaa inaad tiraahdo gaarigan dhuxulla ma aha gaarigan waxa tiraahdo nambarkii dhuxullaha iska hada dhuxush ogaan bal iska gartay nambarkii dawladdu sitay gaarigu oo waxa lahayd dad la wasaaradda dad waxa tiraahdo wasaaradda kalluumaysiga lahayd oo ha xildhibaanada oo la kalluumaysanayay sidii kalluunkan la ugaarsanayay carruurtayda ma ka haysan karna dhe waan jabaadana la soo dirayaayo waxa tiraahdaa leexooyinka xitaa maginka askar baa la haysanaysan sidibaan saas ma doonaysa وانا دابا قريا دو عبد الشيء جريد قبو واحد انيغنا igu daro waxa tira labadii xildhibaan muhiimka ah guriyooda kama soo baxaano dad masaakiintii waysa lagu soo diray dhagaxan guriga loo taagan waldiidii orod waxa gaariga noo jeedo nambarka dawladda u sidii bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa kal fadhigeennii koobaad waxaanu ansixinaynaa ajandaheennii koobaad ugu horeeyay hal is dhageysto mudanayaal oo live ku jira xildhibaanada noo shaqeynayaan taawada waxaan meel kala aamusiyo mar labaad baan ku celinayaa hal la aamuso golaha la dhageysto hal la dhageystaan ugu leeyahay waxay gudoomiye aamus waxa isugu xildhibaanada kala qaylinaysa wadays iyaga baa aamusi meega naga wanaagsan oo golaha daji mudane iyadoo socota qeyladii buu ku dhex faraajintaa mudane ka daamay waxaan golahan buuqa iyo qaylada iyo waxan ka taagan waa sida meeshu waxaan kacsan sigurtigaan ku soo deynaa halagaas anagu hadda naga daa qeyladii buuqa maray aan qaylada buuqdeynaa dadkana musiiyo way wallahi laabtan ka madaxa kaaga fadhiyo billah naga daa qaylada bal waxa meesha ka dhacaya garto yaa adiga dhex raacay dadkii aan dhex raacay balnada waxa meesha buuqiyo qayla ka socday dad waaweyn lama aamusin karayaa hal is dhageysto aamusa hal aamusa aamusa gadaajaan Allahu akbar
أشهد أن لا قدام حرام قدام يا دكتور كلام سايد يا كلام كلام أنا وين قال عليه قراءة حلامة سا متشبه نقول حلامة سا يا كلام سايد قدام يوم مساعد ما طايرته ورتم مساعد ما طاح والله قصصي عشان ده سيسنو كان صحي مسلمين والله لا مسلم ما مسلم يا miiskaan ugu kala jibin miiska golaha maadaama ma dawlad baad ku dawladda ku dhashaadiga lama sixinayo ku mikrofoonada kala jibin naga tagurado talaa fadlan dagaalka hala joojiyo hala is dhageysto هلا دقيقة قدومية آموسا قدومية الله حيوان نعم حوالي آموسا هلا آموسا istajiya gudoomiye aynu isdhegaysano xildhibaanaynu nahay dad ummadii soo dooratay oo shaqadan u dhiibataynu nahay gudoomiye shalay markuu nin waliba fagaaraha taagnaa uu soo baxayay uu codka doonayay miyaanu lahayn kuwii hore waxba may qaban way iska fadhiyeen annagaa wax idin qabanayna maantana way naga fadhi kala isla dhacnade shaqadii iyo wixii laynaga filayeen ummadda u qabanay inuu soo ballan qaadanay meel nakuwi maanta lagu kala dhex jiri lahaa baynu iyagii la kala jiidi lahaa golahani ceeb ma leh waa golo dawladeed mar walba waxa magaca ka xumeeya ama magaca u hagaajiya kolba cidii dadkaasi soo dooratay meesha keento mudana gudoomiye waxaan ku sheegayaa qaladka oo dhan waxa iskala bulshada inaga day ilaahay samada inaga mu doorano kitaab inagu soo deginayno xildhibaan noqono dad baa cadeed inoo taagnaa oo ina soo doortay qaladka dadkana loo ina soo doortay markaynu soo baxnay aynu halkii la doonayay nimid aynu isku dul qabsanay in yiraahdaan shaqadan idin diranay tan ma hay shaqadan idin diranay hagaagsaneed qabta miyaan ahayn iyagii baa kala qaybsanoo xildhibaanka mid waliba xildhibaanka reerka reer hebel iyagii baa qul dadka la dhex socda doonayana in wax loo qabto mudana gudoomiye waxaynu nahay gisaasad faynuusku bariga hore wuxuu lahaa gisaasad habeen oo dhan markuu ku shidnaado qofka iska leh markii habeen dambe kala gaadho uu iska sifeynay uu iska hagaajinay haddii kala waxba arki maayo sidaas oo kale inuu nahay oo dadkan inuu u shaqeynaa golahani waa muraayad halka gisaasadaas oo kale ku jira walkii wadanka laga dhex arkayay dadku iska dhex arkayeen haddaanay markaynu islayneen isku dul qabsanayna oo dhan iyagoo midaysan war shaqada idin diranay caynkan ma shaqada idin diranay qabta oo ay xildhibaan kala raacan shalay toolaalka markii isku diranay dhowrkii xildhibaan iska fadhiyay ee xishooday markii golaha laga dareeray dadweynuhu falanqaynta ay soo celiyeen waxa ay xildhibaanada halka fadhiya way baqanayeen oo feerna ma yaqaanaan waxna ma yaqaanaan dadkii ixtiraamka iyo maamuuska sugayay aan golaha ku dhex dagaalamin marka la ma garanayaan kalfadhigi labaad in gudoomiye soo noqonay iyaga ugu horeeyay wixii qaska bilaabo gambay naga dhigaan Allah baahana waa mid naf lagama tagin kuwii maanta la kala jiijidi lahaa bayna askartii amniga loo diray ciidankii amniga loo diray maatada iyo inay ilaaliyaan inagii mas'uuliyiinta hay lagu kala dhex jiraan kolba laba dhan u jiiyaan oo dadweynuhu fadeexadeen iyo ceebteena daawado maral aliya markii halkaas ku duldilana dibadda intaynu u baxno sidii ambalaaska wada qaylino halkii ceebteena dhuuman lahayn inagoo arrin isku raacayna arki maysid inagoo ajenda isku raacayna arki maysid waxa kale isku raacna waa hiil iyo in halka xildhibaan ku dhuftay oo raacay kana ku dhuftay shaqadeena maxay tahay waxa kale oo dhan balka kaalay ee golaha u yaala shaqadeena waa gacanteenu taagnay gacanteenu dajino muslimiin ku taagir laanay kula jikir laanay rag baa kulii lix subaxnimo kala oo ka baxa afarta garabnimo hadal iyo yahan lagu arag dadweynuhu mid kale sharci buu leeyahay garoomada kubadda hadaad aragto qofka garoonka qalad ka dhex sameeya ganaax buu leeyahay intaas oo ciyaaradu ka maqnaad uu leeyahay lacag ganaax buu leeyahay halkaas inuu isku wada dilay ka qofkan golahan qaska ka dhex wada ee waxaan bilaabay ee hebel dilaya ama waxaan sameynaya waxa loo arki laayay ganaax ku dhaca xukun u yimaada waa aqalka sharci dejinta madaxweyne ma maamulo wasiir ma maamulo cid kalena ma maamusho inuu haday hada qalbiga shaqada badnaa
xaalad degdeg ah haday timaado ama xaalad ba timaado kulan degdeg la isku yeero sidee dagaal baa la isugu yeeraya hani qaladkan oo dhan waxa iskala dadweynaha hadayna oranayaan war shaqada idin dhibanay tan ma aha shaqadayda haagsan idin dhibanay qabtay inuu ka doonaynay haday iyaga yihiin awr kiraale oo kareysan siyaasi mar walba nin siyaasi kubsanaya oo magac iyo xil doonaya hebel 40 sanadood ilaa 100 sano inuu gaartay inta shayga qulunka qabyaalada aan isku dhaxsaari karlaana mudana gudoomi wadalka adduunka agtay wanaag yaa aqoonsaday min nabiga ku dhaxnool oo dibadda uga yimid soo dad isku tagay oo tashaday oo wixii dantooda ka wada shaqeeyay soo ma wixii kale ka tanaasulay maanta kuwii golihii sharci dejinta fadhina ceebteeni cid walba way gaadhay askana in gooniya wada mudana gudoomiye waxba qaran maayo inuu ka wahay hadayna aan lahayn maanta cidina ku dhex jirta cidina kala qabata cidina soo kala gaadha oo dadkii waxay inuu qabanayeen inaga ma filayaanba waxaad mudayna dagaalkana taawanayeen inay qabaayilo kala safanayaan nin walba reerkoodu maalintu soo baxayay oday iyo caaqil iyo suldaan iyo sheekh umay kala hadhin way soo calaamad saareen halkan ay keeneen waa nin magac huwan cid ka socda mar laaliye markuu wax qaldu golaha qaso cid walba qaso sida markii hore ugu soo baxeen ee meel walba ula taagnaayeen ee fagaar walba ula taagnaayeen miyay inta imika soo kacaan oo dhakir laayeen war waxaan ku meeshan ku geysanay waxaan ma magacayga bad sida taay ama meeshan iska eeg ama qaskan jooji mudana gudoomiye waxay meesha la joogna mare maanta kambani ama meel shaqayso magaalada kamid ah haday dadweynaha qiimaan macquul ahayn ama waxaan sidii ahayn si kaga dhigto inaga hadku laga xisaabtamay wuxuu dajinay iyaga la hadli lahaa dadkii ba markay yaabeen inay isku dul qabsaneen iyagu isku dul dilay ay naftoodii noqotay intay isyar urursadaan inay shirkadni leeyahay xafiisintii hor istaagaan inay raax xafiis fadhiyaan naga daay xaqoodii ka bariya markay isku dul qabsaneen inagu fariis la dhacnay maalin kaliya darbijiifta kaga hadlan golaha masaakiinta kaga hadallo danyarta kaga hadallo qalbi ajandaynu gacanta u taagna aynu uba taagnabe ma muslimiin ku fadhi karlaan shaygan ugu qaldan ee dhexdeena ka jiraana mudana gudoomiye wuxuu yahay shayga qabyaalada ah dadkiina soo doortayna aqli male oo awr kiraala siyaasi u kareysan oo kolban inuu kubsanayo xataa qaar ku soo laba noqonayaan golahani magac iyo maamuus buu leeyahay sharaf buu leeyahay sanadii shalay toole meel walba kala haynun annaga xildhibaanada kale idin ka wanaagsanaan annaga wax idin qabani ministraalna hadana ministrina mudana gudoomiye maanta hadii nin walba reer yahay maalin walba midkeen ba saxaafada ka hadla xildhibaanada kamid oo maalin midda ka hadlo hadalku shalay yiri uu qalday marka la inta dib u soo fadhiistay la gelin bixinaya oo dadkii la yiri wax qabta mas'uuliyiinta aha mudana maanta ama nin waliba duuleeyay reer baana ama cid gaar leedahay reer buuya oo dadweynahaas umada wax soo dooratay inuu reerkooda maanta haw tago halkaas kaga tago wuxuu qabanaya qabto halkaas markuu yimaado xildhibaan qaran buu yahay umada oo dhan buu wuxuu qabanaya inaynu kala tagno inuu cid leeyahay qabanaya qabto inaynu xildhibaano qaran noqono inuu dalka horumar gaarsiino umada wax u qabano wixii la inoo doortay aynu qabano oo aynu noqono dad horumaray oo wax qabsaday oo aan ceebtana dadweynuhu maalin walba daawo Hadaad xildhibaan